kula wacan wanaagsan idil ahaantiinba khiyaarta hawada nagala xidhiidha email kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteedii faaqidaad waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan diradda ku saari doonaa xaaladda dalka Soomaaliya iyo waliba Itoobiya oo xiisadii u dhaxaysay ay si laba kaclaysay kadib markii Itoobiya ay ku tilmaantay dalka Soomaaliya inaysan ka jirin wax dawlad waxa kale oo ay sheegtay in maamulada ka jira ayagu ay daba ordayaan oo ay doonayaan inay heshiisyo la saxiixdaan laakiin aysan iyagu doonayninba dawladda dalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay xiriir xoog la sameysay jabhadda Faano oo iyadu laftigooda propaganda weyn ka wada dalkaasi Itoobiya iyadoo sheegtay jabhadda Faano in ay ku wado amar ilaahdee Itoobiya waa qowmiyadda Oromada faragelin baaxad leh Muuse Biixi ayaa guddi waxa uu magacaabay magaalada Addis Ababa kuwaasi oo ku sheegay in ay soo dhameystiri doonaan heshiiskii bishii 1 January dhexmaray Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland laakiin guddiga ayaa la tilmaamaya inay gabi ahaan bay iscasileen kadib markii ay meesha ka dhax waayeen wax ictiraaf oo maamulka Soomaaliland gabi ahaan bal ictiraafayo waxa kale oo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan afayeen u hadlay jabhadda OLA Oromada ayaa waxa uu sheegay in ay deegaanka Oromada 4 meelood 3 meelood ay gacanta ku dhigeen abiye iyo waliba xukuumaddu hogaaminayana haatan ay fadhiyaan banaan cilla dalka Itoobiya qalalaas xooggan ayaa ka taagan meesha wargelin ballaaran ay ku hayso dalka Soomaaliya maamulka Puntland ayaa u jawaabay Muqdisho waxa uu sheegay in ay xataa dalka Ruushka ay siin doonaan saldhigyo military oo aysan waxba ka galin magaalada Muqdisho iyo waliba Jamhuuriyadda Federaalka ee dalka Soomaaliya badaas iyo kuwa kale xiiso badan ayaynu daawadayaal ku ifin doonaa barnaamijkeena waxaana barnaamijka ila qada dhigi doona saaxiibka shida soo dhow waan dhawaay saaxiib waxaynu ku horeynaynaa faano propaganda la yaab la ayay wada waxay leedahay qowmiyadda Oromada waa nimanka lagu magacaabo Itoobiyadan deebaadkiis wata ninka lagu magacaabo qoladan hoggaanka haysa Soomaaliya faragelin buuxda ku hayaan bay dheh waliba sira balaaran bay soo faqeen oo banaanka keenay ilaa iyaga is yaqaanay waxay banaanka keenay waad iyo aad baad mahadsan tahay Cornel Faragodow waxaad moodaa nin daad qaaday xumbo cuski ma maqli jirtay nin daad qaaday xumbo cuski baa ka socota Muqdisho iyo deegaanka Axmaarada qoladii Axmaarada waxay leedahay talla ay Soomaaliya walaalahana ayaa lagu xadgudbay yaa ku xadgudbay Itoobiya ku xadgudubtay oo Oroma waa adduun samaan aakhira Itoobiyaanka oo qayb ka mid ah leeyihiin Soomaalidii baa lagu xadgudbay qaybana ay leeyihiin meesha waxba kama jiro waa adduun dhan ka raran waaye marka qoladii Faana ay qayla dhaan bay diraysaa waxaad moodaa nimankan Muqdisho jooga oo siyaasaddu ay ka baaday siyaasadina ay maartay ay ka wareertay inay Faana tolmoodeen Faano ay tolmoodeen nimanka Muqdisho joogay waa lagu xasaq maxamed hoggaanka u hayay Faanadii baa hoosta kala hadlaya kuwa Muqdisho u jooga oo odayaal oo Faana ka soo cararay yaa Muqdisho jooga kuwa wala la xiriiray saraakiishini qoladii television-ka qurbaha joogtay sidaas qoradhe sidaas dhax marka nin daad qaaday xumbo iska maqli jirtay dalka Soomaaliya xumba daad ka qaaday xumba Faana xumba maanta Faana leena noo hadla wax ambaareeya diyaaradda mi joojiyaan iyada ma Itoobiya isku dhamaan lahayd de awoodda malade xogtan ku siinaya safiirkii markii la yiri waa la caydinayaa dawladda Soomaaliya inay caydso intay go'aanka u jartay uu ku baxo waxay dheen horta noo imaw ma hadara waa noo imaba kulan buu la qaatay maanta wuxuu tagay madaxtooyada oo ninkii ma bixin maanta madaxtooyada lagu casuumay halkaas wada hal shir lagu galay waqtiga uu bixi doono ayaa loo cayimay waxaa la yiri cudurdaal waa loo calaacalantii albaabada la soo xidhay lagu dul ooyay go'aankaas iska qaadanay waraaqda qaado reerkaaga ku laabo la soo tasho barnaamij noocaas ninkii la rabay in la dhoonti digniin la siiyo xataa bilaanti soo damaadil arkin hay'adaha amniga intii heegan la galiyo la dhaho meesha lagu arka la qabto asna intuu albaabka xidho cabsado airportka uu tusno wax waa Soomaali isku aamin airportka carar la rabay halhaleel yaa bal yiri madaxtooyada ku casuumanta oo qadal loo sameeyay qadaba loo sameeyay ninkii ba qadal loo sameeyay muqaalana ku soo dir doona baalka afur gududna qadaba loo sameeyay oo sawir la galay dhac igu sawir ma hadara hadda maanta ay dhacday hawshaas ay dhacday ma fahantay marka meeshani fashil baa ka taagan maanta markay Faana ay leedahay Soomaaliya lagu xadgudbay Faana mayna ayadu iska leeyahay waa noo dhaxalay waa noo hadla waay odayaasha Muqdisho joogay baa la yiri yaa dhaqaale la siinaya oo dhowr milyan baa waxa leeyahay television-ka la hadla Faanadii wixii waxa dhansaado Soomaaliya lagu xadgudbay hadaan Itoobiyaana waan ka soo horjeednaa Faanada mudaharaadaysa walaasha Muqdisho dul lagu yahay safiirka ma bixin wuxuu yiri toddoba kadib baan ka fikirin inaan baxay Muuse dhig xaqiiqdi masagii baa bale waa ka fikiraba toddoba kadib inaan baxaya ka fikir wiil madaxtooyadu uu shir ku qabtay fila Soomaaliya lagu casuumay haye wakaas
warba ku sheegaya moogtahay wax waxa jirta aad indhaha ka garato waxaad indhaha ka garato ayaa jirta aqli ka garato ayaa jirta waan gartay qoladan filla Soomaaliya aad iguma taataabto waan iska ilaaliyaa moogtahay waan iska ilaaliyaa oo waxaan dhahaa waa soon ku talax tagi baan ana og xaaladooda yaan dhaha ku talax tagi waxaan arkaa oo aan ku leeyahay waan ku riyooday marka ku leeyahay calashan caadiyan baabun arkaaba ninkaas oo jooga oo baxayni ma socdaba safiirka soo bixin oo jooga arki doonta waan gartay waka ma socdo safiirkan hay ma ninka digniintii loo diray meesha 24 baa la rabay in loo qabto 24 hours 24 hours wada ka baxal rabay hay ninkii sidii ahaa ayaa madaxtooyada lagu casuumay intii la casuumay oo wali abaalos oo lagu dul ooyay oo lagu calacalay yaa la yiri waraaqda naga waraaqda ku soo qoray inaad la tash abi waraaq loo qoray la tash waraaqda jaab gashaday xir usbuuc kadib ayaa bixi insha Allah inuu bixi doono waa usbuuc kadib oo hawshan isbedeshay ama la iloobay inuu baxar la xaqiijin karin marka meeshan fashil weyn baa ka taagan meeshan fashil weyn baa ka taagan dalka Soomaaliya ilaahay waa loo yaabaa horta dalka Soomaaliya waa loo yaabaa Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulkiisa ayaa mas'uuliyadda iska leh inaan maanta dhaano faana noo hadlaysa waa adduun suura gadoona jamhad Itoobiya dhaxal argagixisa ka ah oo dawladii iyo dalka ka tirsan argagixisa looga yaqaano in aad tabar ka daydo oo ayada telefishinka noo hadla waxa ku tusinaysaa taagdaridaada iyo waxa aad tahay iyo inaad macna lahayn ay tusinaysaa maya garwa loo islaan in jabhada faana la soo dhaweeyo oo la xaabeeyo oo waliba lacag la siiyo oo la yiraahdo bombuuniya oo afxaar iyaga aday maashi isla Itoobiya ku hadal dhorta waa sax weey cadawga cadawgiisa loo hubay arintaas waa arin sax weey dawladda artaa ku saxan tahay laakiin riixamarku waxay dhahaan kuma maahan canjeera sidii u kala korayso yaa loo kala qaadaa bay dhahay inaguna waxaan dhahnaa oo sidii u kala sareyso oo sidii u kala sareyso loo oo dhacama la dhahay waliba oo dhacame si u kala korayso loo kala qaadaa meesha inuu san nidaam fiican ka jiro waxaad ku garan safiirka waxay 24 hours in loo qabto bal dhageyso diyaaradda Ethiopian Airways $1 million maalin walba ka $1 million bay maalin walba ka sameeyay dalka Soomaaliya waa qolada dul maraysa kaliya hadagow mid baa mushtariga dadka keenaysa kalluunka qaadaysa waxa ma aha Soomaaliya lacagta ka sameeyay Soomaaliyana $1 kama soo galo $15 oo tigirka ahaba yaa lagu xukumay Ethiopian Airways $15 way diidayba waxay ahayd marka talaabooyinka ay Soomaaliya qaadayso inay safiirka Afrika sax gudahood horta u qabato waa qodob haduu diidan ciidamada intii loo diray airportka intii la geeyay meesha lagu masaafuriyo ma ninka 24 hours loo haduu diido in la tarxiilal rabay asagoo jeebaysan yes in la tarxiilal rabay waa qodobka labaad Ethiopian Airways hawadanada ma mari karto waa mamnuuc waa mid dunida airportada dalkan kama wadii karto shatigiina lagala laabto soo laba qodob ma ah qaramada midoobay African Union iyo maxaan ku dhahay iyo goboleedka IGAD iyo gaal futacdo idin la in loo sheego la yiraahdo ciidamadan afka guduudana dalka Soomaaliya dhax fadhiya hana laga saaro waqtiga loo qabto African Union noogu jir baahiyaan hana dhaafay wakaas horta talaabooyinkaas ahayd in la qaado dadka qaadala ah meyti baa joogta meeshan meyti baa joogta dadkan jooga dad system dawladeed bartay ma aha dad dalka si hogaamin karana ma aha oo sidan dadkan ku si maamuli karana ma aha anu waxaan aaminsanahay nimankan si qaabka ay wax ku wadaan